كلما dadka macallimiinta inta badan waxay iska jecel yihiin dadka inay su'aalo weydiiyaan marka laba iska jeceshiin inaan muxaadarada aan wada muxaadarayno iyo inaan kaliya muxaadareeyo keed jeclaan lahaydeen inaan ani kaliya muxaadareeyo inaan kulligeen wada muxaadarayno keed jeclaan lahaydeen inaan kulligeen wada muxaadarayno Soomaha adaan kulli wada muxaadarayno marka inaan istaagay noqonaysa saas ma aha طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله آدي بان ugu faraxsanahay kulankan ballaaran run ahaantii qofka mu'minka qalbigiisa uu ku farxo kelimada aan jeclahay anigoon muqaddime iyo hordhac badan gelin inaan idin la wadaago horta marka koobaad awowgay aadan way awowgay laakiin aniga magacayga maxamuud sheekh xasan sheekh aadan baa la yiraahdaa laakiin de baasaboorka markii tigirada la goonayo aadan lagu qoraa marka magacaygu aadan ma aha awowgay baa aadana marka horta oo la socdo insha Allah marka koobaad walaaluna waxa laga qaabkii baasaboorka ugu qoraa iyo tigirada inay arkeen baan u maleynayaa mawduuca ku saabsan isfahamka lamaanuhu waa gundhiga tarbiyada haddii aad ciwaankaasi aad eegtaan laftiisaba muxaadaro noogu filan isfahamka lamaanaha waxaan ka wadaa labada isqabta baan ka wadaa lamaanaha isfahamna waa taqaanaan oo labada inay is-afgartaan oo labadoodu isfahamsan yihiin waxaa midhaha ka dhalanaya waxna waa geedkii waxna waa midhihii inta ila fahma bas waxna waa geedkii waxna waa midhihii geedku waa labada isqabta laamaha iyo caleemaha iyo midhahana waa caruurtii iyo midhihii laga goran lahaa haddii uu geedku nool yahay xididdo waaweyn leeyahay haddii uu geedku biyo badan cabay ayuu laamana bixin karaa midhana bixin karaa hoosna yeelan karaa indhahana u roonaan karaa tusaalaha qoyska wanaagsanna waa geedka wanaagsan wey waxaan doonayaa waa mawduuc aad u dheer inaan qodob ahaan idin la wadaago idinkana idin la wadaagtaan insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo horta marka koobaad waa inaan dareensanay wax la yiraahdo mas'uuliyadda mas'aladan ayada oo mas'uuliyadda waa inaad garanayso waqifuhum innahu mas'uulun istaajiya waa kuwa wax la weydiin doona maalinta qiyaamo hadaba su'aashu waxay tahay المسؤولية السائل فيها هو الله عدة وحويدين سوى الله سؤاشا مرها لغا قرنا ينا لغوي إما نجاح وإجابة صحيحة وبراء لذمة أو مركزي أي نقطة نتيجة ونكسن يقول وإما إنا تكون عضو هرت لبضا مدوي وحكا حيا ماله قضبك أقومهم سنة عجائبك oo aan toos uga bilaabaya anigoon saa sheegay hordhac badan sameeynin lamaanaha maxay isku fahmayaan horta waa inay qudwo noqdaan labadoodaba mid lagu daydo mid walba midka kale waa in lagu daydaa su'aal ilmahaaga maxaa lagaga dayanayaa maxay kaaga dayanayaan ilmahaagu waxay kaaga dayanayaan wax walba xagga cibaadada xagga sidqiga xagga amaanada xagga runta xagga xuquuqda xagga muusoodka xagga qosolka xagga aqliga xagga tacliimta xagga wax aqrinta wax barashada ixtiraamka sabarka dulqaadka miyaan tirin karnaa ilmahaagu horta waa inaad tahay qof lagu dayan karo markoobaad walidaalika ayaa nin shaaciran hadalkiisa aad u jeclay wuxuu yidhi amartuka alkhayra laakin ma atamartu wama istatactu wama istaqamtu fama qawlii laka istaqim wuxuu leeyahay waan ku amray khayr laakiin aniga ma samaynayo khayr baan ku amray laakiin anu ma samaynayo toosnow baan ku leeyahay laakiin anigu ma toosnanaye
هذا الكي أويلي هو قرآن كأقري أنا أن قرآن كأقريين يا قبر يا حجابه أنا شنت الصباح نما أراسان كإيمانية صامها فالإيش هذا مسائل كاس يعني صورة قلمها هرت مسألة قدوة اللي يراد إيمان دونت إن شاء الله أدي الله يراده وحندونا يا إنا السؤال إيودين رجع هذا السؤال شكو بالله محلو جورس هذا قبلها هرت محدو جورستي قبل الإسلام محدو صو حريستي أو أتقولي هذا أو صو كحيستي ما تغنى شعيل لا إله إلا الله وياه طيب شعيلكم إنه إيمان دونا إن شاء الله أدي الله يراده مشكلة أوجو وين هذا سائل كاس ولا الكين لأنك على يرى جوابتي سوى مدة وخربتوي مسألة مركز لقى أجي وأن كنت شعل هاي وأن كنت شعل هاي بيرك يحنون يا هبينك مسيح كاله يسيحي يوول ولي تاوي يا مركب له لوسو حريي وحوارنا ما يدربوا ولا كلا تجيا طيب أرتكوا وحل سوق رصد هذان يسوق خلاصة مركبات إلا هلا قبلها ما ودي سؤال أي قبله هي أيضا كان قبله أبو بدين ما شاء الله وحالي قبله محلي جربة هذا البدو على أمي ترمان ما شاء الله قبله إلهي ونوتر بيه تبارك وتعالى أي قبله إن نحضر قيب تنفرد محلي سوق رصدكوا مسؤولية وحالي سوق رصد إن المسؤولية قاضه بلوتي اللي قلت تجربيه متى يقفرت مسؤولية قاضي كرم سمتيت يا وحال لو رصده إن سكينة إيا دجنان إيا حسلوني إلا هلو وحلو قرصدا إناد كسب بحضر على الحنونكي إسكابولا لماذا يا يعني ماذا حنونكي إيا والبهاركي إيا والولكي إيا حقل حنونكي إيا ماذا حنونكي إيا كورنتضو كامقا حتى قفك إسكابولا دا قرقا كدعوذا حيلا قرقو ساكا كتاقي أرورتي دوريقي وصيدي الله من بوصو نغنيا لكن مركي قبل يرجعوا كوتشوكتو ما عاشه نكسائلك يا فيصلوا فيصلوا مركي أد ساكا أتكبر حضور جوريجا أو قبل يروح قروح بتجوروا أو تكتب أو الله مركي ساو بحضور سريرت أتكسي حتى أي سفي عن أتشفته جاء أي كبد دشوا دريشة ترترتو تشكده كوجاشو جوري إدجون أو عرف بدن أو دقسيجا صاج على الحكومة يو دقسيجا حتى دقسيجا صاج على الحكومة يا مركي يريد لجاجة إماده أهرت ماشى بق على جا في رينا صوصعت مركي لو أركنا سترتيب الباب لجاجة فرو مركي ساو صاج عشان لجوه سبود منين كايا وحاسكم إذا نين عاو جوري كتجي دونيجي يا بستيه سي سكول الأمية صحن كوساك قرعة كأنه بقول ماشي يلا وحلو جور سدا حسلوني إيا دجنان إيا اطمئنان هرت إلا هلا كو وحكلا لو جور سدا شهوة إلهي قفك بين آدم كأكبري إنه أهل حلال وإلا حرام ولا أذية وحكلا لو جور سدا الإنجاب والحفاظ على الجنس البشري بين آدم كإنه ترمه أو بين آدم كإنه بطه أي لو جور سدا وحلو جور سدا استقرار المجتمع إيا وسعادتي بالشدو إني سعاده شو إن قرابي إيا قيس له كل ذلك وحيابه لو جور سدوي سؤال بان ربا هذا إنا ويديو طيب وحان ربا إنا ويديو سؤاشا يعني إن لقى جوابه قبلها وحان ربا إنا عنده ننكاقي قلبي سبا إسحري وكاسي جيستي ما قفر هذا هيستاء أو تكفرت ننكا قلبي إنا فرنان ربنا ما قفر أياد هيستاء أو ننكاقا قلبي سأتكون فران كرتا فرها كوبات محونا غنيا لابد وإن هذا هيستاء فريال أتكون فران يسو ننكاقا قلبي سا رقا هداي حاسكاقا قلبي يدو إسحلوي كاسي جيستو ما قفر أياد هيستاء أو حاسكاقا قلبي يدو كفري كرتو أيه قبل ما حددن كو فرها كوبات يا صبر كما دادين عنتدا قلبك كوباد وعنتدا سلا درادد u fiirsada waxba rabaa markay inaad ii sheego maadaama oo gabdhuhu ay dhaheen raggu way hunguri weeyihiin waxa ragga lagu hanan karana waa caloosha
saadaradeed gabar ba intay u timid nin xakiima bay ku tiri waxaan doonayaa magaaladan dadka degan dumarka degan inaan noqdo gabadha uu ninkeedu ugu jecel yahay yacni gabadha ugu sarraysa inaan noqdo wuxuu yidhi waayahay waan kaa dhigayaa waxaad yeelaysaa 10 xabo oo 9 xabo oo timo ah waxaad ka soo goysaa libaax waxay tiri libaax ay dirin dadku cunaaye jacaylka ninkaaga waxay kaaga xidhan tahay 10 xabo timo inaad libaax ka soo goyso waxay la tashaday dadka khubarada u lahaa xayawaanka libaaxa war libaax see loola saaxiibaa waxaa la yidhi libaax waxaa loola saaxiibaa hilib in la siiyo neefay soo qashaa way u dhigtaa wuu cunaa subaxa dambe mid kale way u dhawaataa wuu aaminay wuxuu arkay yacni arsaaqadiisaba inay halkan ka bisishahay saa daraaddeed gabadhii wuu isku aaminay gabadhiina kama cabsanin ilaa marka dambe ay neefkii hortiisa u dhigto ilaa intuu cuno uu seexdo kadibna inta halkaa qoorta iyo ka salaaxdo ayo markuu xoogaa seexdo ayay xabatina dhag ka siisaa indhaha markuu kala qaadana gacantay marisaa isagu ma taabanayo berri bay u keeni neef adhi ah 10 xabo oo timaha markay soo jartay ayay oola timid ninkii waxay tiri waa kuwa 10kii waa soo helay su'aal baan ku weydiina see 10kan ku soo jartay waxay tiri waxaan ku soo jaray intii aan 10ka xabo jarayay libaaxa calooshaan u buuxinayay haddaba wuxuu yidhahdaa doonaysa ninkaagu inuu ku jeclaado caloosha u buuxi inana ninkaagu libaaxa kama khatarsano soo ma libaaxana kama cunto badno libaaxana kama waraabaysno haddaba gabadha doonaysa ninkeeda inay qabato uusan meel la aadinay horta waxaa ceeba gabadhan oo marwa inuu ninkeedu quraac la'aan ku kalo waxyaalaha waayahan wadamada lagu arkay waxaa weeye adeer ismariska iyo konfalexka cunoo iska socoylada islaantaasi ani ilama quman inay islaan talow hadday jiran tahay waan garan karaa hadduu wax kala jiro waan garan karaa laakiin gabadh caafimaad qabta oo raalliye noqon rabta oo janno rajaynaysa oo ninkeeda doonaysa qalbigeeduna sameel kala aadin inay ayadana iska mashquulso ama ay seexato kadibna ay dhahdo ninkeeda haye wuxuu cunay inay ka waraynin maya taa hal dalqa in lagu furo waay laakiin insha allahu ma dhacayso ragga waxaan leenahay noo daaya gabdhaha saa daraaddeed u fiirsada gabadh walba hadda meesha fadhiya maasha allah gabdho badan baa fadhiya isku day inaad berri haddaad ahayd gabdhaha aan quraac samayninay may soo kaco ninkaaga quraac waxaa ceeba in lagu arko ninkaaga oo maqaaxiin cunto ka cunay mar walbaba fashil waaye waxaa la garanayaa guri saxa inuusan ninkaa ka soo toosin ma la fahamsoomaan gabdho maanta si fiican baan isu waansanaynaa idan furaha koobaad muxuu noqday cuntuu noqday furaha labaad waa maxay ya waa sanka furaha labaad waa sanka iska ilaali ninkaagu sankiisa wuxuu dhibsanayo yuusan arkin hadduu ninkaagu adiga jirkaagu caraf gabdhaha waxaan u sheegaa waxaan jeclahay raggan inay aad u dhegaystaan warka waa war muhiima gabdhaha waxaan ku dhahaa horta gabdhaha adeer baan u ahay idiin sheegay waalid baan u ahay waana jeclahay gabdhaha soomaalida saa daraaddeed markaan la talinayo waxaan oola taliyaa qaab waalidnimo ee oolama taliya qaab nin caadi inaan ahay marka qaab waalidnimo amaan oola taliyaa waxaan siiyaa siro hoose oo khatar ah ayaan siiyaa baaswari yar waxaa ka mid a waxaan dhahaa gabadhay markaad doonayso inaad ninkaaga isu qurxiso nadaafadda kadib kareemka aad marsanayso 3-4 xabo oo cadara ku dar waxaan u diidana ma garanaysaan لأن gabadhu hadday intay barfuun soo qaato bish ay isku siiso jirkeedu wuxuu ahaanayaa maxay meel roob ka daay roob intuu ku daay roobka meel la ka daay meel la ka tagay ninka hadduu meel san ka saaro waa abaar meel hadduu san ka saaro waa barwaaqo lama doonayo waxaa la rabaa inaad kulli barwaaqo noqoto waxaa taa lagu gaari karaa oo keliya inaad kareemkaad marsanayso intaa 2-3 laakiin ogaada qodobkan ogaada gabdhaad u dhagaysta waxaad ogaataan waayahan markii wadamadan la yimid dadka sanka xidhmay allergy badan baa la qaaday marka barfuunada khatarta ana ninku kaaga fogaani haddaad arto markuu ku carfiyo asagoo hindhisaya ka fogow saadaradeed waa inaad marka horeba taqaana ninkaaga barfuunka ku haboon waa inaad taqaana soo ma marka horta taasi waa sir khaas ah waa qodob weey idan maxaan haynaa adiga jirkaaga waxa weey waa sanki weey qodobka saddexaad ee furaha saddexaad waa maxay
qodob kasta oo gabdhaha iyo wiilashu waa isku mid adigana waa laga rabaa maxay nadaafadii waa laga doonaya haddaad nin tahay maanta oo adiga oo makaanig aha ama adiga oo tagsiila aha ama adiga oo macallin aha ama adiga oo shaqaale aha haddaad xaaskaaga oo qurux badan u timaado maxay u baahan tahay waa nafle waxay u baahan tahay sida ay kugu isku qurxisay inaad adiguna iskugu qurxiso sida uu dhihi jiray cabdullaahi binu cabbaas radiyallahu ta'ala anhu waxaan jeclahay xaaskayga inaan iskugu qurxiyo siday anigaba isku kay qurxiso warka wala fahamsano furaa saddexaad waa maxay ya furaa saddexaad waa maxay furaa saddexaad waa isha fiiri weliga iska ilaali inuu ninkaagu soo galo guriga adiga oo baatigii basasha qaba waa ceeb taa waa ceeb may gabadhu markuu odaygeedu guriga soo gelayo waa inay indhaha waa inuu ka dhargaa fiiri indhaha cuntada markii la soo dhigo indhaha laga dhargaa xataa alcaynu tacsha qabla alqalbi baa laga ishu waxbay jeclaataa qalbiga ka hor soo ma aha saa daraaddeed cuntada indhaha laga dhargaa adiga oo qurux badan oo weliba ninkaaga waa taqaanaa wuxuu jecel yahay iyo dharkuu jecel yahay maxaa lagu garanayaa hadduu maanta uu ku yidhaahdo wallaahi dharka aad baad ugu qurux badnayd ogow ninkaa dharka wuu soo jiitay sidaa daraaddeed furayaasha waa qodob muhiima jiddan weeye qodob kalaa jira waxaa la yidhahdaa alibtisaama gabdhaha qaar baad moodi in habeenka o dhan la dilayay oo ragga qaar baa iska xanaaqsan oo asagoo buuqaya oo xanaaqsan buu soo galaa maxay kaa dhimaysaa inaad ilka caddayso ragga ajaanibta waa loo ilka caddeeyaaye maxaa diidaya inaad ninkaaga u qosasho markuu guriga soo galo saaxiib adigu maxaa diidaya markaad gurigaaga soo gasho adigoo carfoon oo cadayan oo qoslayo dhoolla caddaynaya inaad xaaskaaga u soo gasho maxaa diidaya ii sheeg wax diidaya idan waa muusoodka iyo dhoolla caddaynta waxaa la yidhahdaa mafaatiixu tafaahumi bayna zawjayn labada qof waxay isku fahmayaan bal aan khulaaseeyo inta haddii aan ka soo tago waxaan doonayaa hiqatu zawjayni bibacdihimaa waxay ka qaadanaysaa dowr cajiib ah fiiriya markay labada isqabta isku kalsoon yihiin aatharta ka dhalanaysa ilmaha waa sacaado waa liibaan waa farxad waxaa weeye waa qodobka kale alixtiraamu almutabaadal labada isqabta waa inuu mid walba midka kale u xurmeeyaa xurmo ma taqaanaan xushmo ma taqaanaan qadarin ma taqaanaan yani fiiri fabajaxanii fabajaxtu yani fabajaxat nafsi yani waa i weyneeyeyo anigana waan isla weynaaday xadiidku muzarc akhriya xadiidku muzarc waa xadiid cajiib ah haween 11 oo meel fadhiistay oo raggooda ka sheekaynaya hadee qabl islaam bay ahayd lama ogolo hadda in la iska sheekeeyo laakiin min baabi taariikhu may caasho u sheegaysay waana xadiid bukhaari kusoo sugnaaday oo mataqaanaa saxiix ah weeye marka aad bay u tilmaamayeen laakiin waxaa la rabaa inay noqoto zawji almasu masu arnab wariixu riixu zarnab caraftu waa barfuun taabashaduna waa maxay taabashaduna waa sida kaalka la yidhahdo bakaylaha oo kale maxaa la yidhahdaa ixtiraam almutabaadal labada qof waa inay is ixtiraamaan maxay isku ixtiraamayaan xagga caqliga iyo maskaxda iyo xiwaarka su-aal labada isqabta ma iskhilaafaan haa qodob baan ka hadli doonaaye markii la iskhilaafo ma la wada xiwaartamaa oo ma la wada fadhiistaa oo ma la wada hadlaa oo ma la isqanciyaa bise qof walba wuxuu doono ayuu sameeyaa waxaa la yidhi ixtiraamku waa shayga ugu qaalisan oo reer isku dhisa xaaskaaga markaad ka maqanta iyo markaad la joogto ninkaaga hadduu kaa maqaya hadduu kula joogo waxaa jira wax la yidhaahdo alixtiraam waa la iskhilaafi karaa laakin alixtiraam waa la ismaan dhaafi karaa laakin alixtiraam idaarat alkhilaaf qodobada igu muhiimsan bay ka mid tahay kolba culamo akhyaar aho ajillo aho mawduuca aad u yaqaano way fadhiyaan reeraheenna waxa ugu khatarsan khilaaf hadduu dhaco see loo daaweeyaa khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo idaariyaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa khilaaf hadduu dhaco see looga wada hadlaa khilaaf hadduu dhaco see looga tallaabsadaa khilaaf hadduu dhaco sidee loo wada hadli karaa oo la isku qancin karaa reeraheenna waxa ugu khatarsan ee dumiya qodobkaa wey lama garanayo fanu lkhilaaf
وقضب قونئة وعلماء أي دورات يكتب كألفان فن الخلاف أما إدارة الخلاف أما فقه الخلاف محال اسكو خلافي كرا إن بدن ريرين اسمه يقانن سموك دينه هرتا تام وقت إنان ليس قوم با وحان شعلها إنان رهو قف كي فرصة دافتيو ما أنت فرصة دا كفايديسو عاوة وإناد بالله وضع أذيك إيا زوج كاغا أو محي أولا قدب وكبد وامحي أسبرنه أنا ما يتغن هرت ومهم لما قفين اسبرتان أنا ما حان شعلها ما تغانا ما تغانا من إنك أقول عليه حتى الآن ما تغانا حاسك أقول واحد شيء حتى الآن إلا من رحم رب العباد ورهدانا أقوني واحد شيء هدانا أقوني واحد أنا وتشعلها سيدان أوجد سان كوسين كرا حقاقة مر والبتسال الله بان كدغا او fiirsada muxaadaraadka inta badan aan qoyska ka hadlo laba tusaalaha la ka soo qaada wara dabeecada rag iyo dumarku ay kaleeyay dal isbaran marka la iskhilaafo haweenku inta badan way ooyaan ama maxaa la yiraahdaa qolka isku soo xidhaa ama haday doonto way hadashaa oo buufiska iska saarta raggu inta badan wuxuu doonayaa inuu irida fikado oo iska buuxu doonaya marka horeba hadaan la dhihin haddayna gabadhu dhihin dhageyso sheekhow anu haddaan xanaaqo gurigaan isku soo xidhaa hay taabanin haddaan xanaaqo waxaan doonayaa in aan hadlo oon iska saaro naqaska hayla hadlin ninku u yidhaahdo haddii qaar baa haweenku markay xanaaqaan guriga shaqo ugu dhaqaaqa way dabeecad way kala duwanta ninkuna markuu xanaaqo wuu baxaa haddaan aniga adiga arrintaa isku ogeyn maxaa dhacaya waxaa dhacayna maxasadu duubaysaa soo bax hadduu ninku dhaho anigu haddaan cadhoodo waan baxaa gardarrada yaa iska leh haddaad iridda istaagto ma adaale mise anaa leh adiga iridda istaagay baa leh waayo waxaan kuu sheegay haddaan xanaaqa waan baxaa waxaan soo laabanayaa anigoo kuu sida maxay anigoo ubax ku wada allah anigoo ubax kuu sida soo anigoo shukulaato kuu sida anigoo soo nafisay anoo ragga la soo sheekaystay anigoo misaad ku soo tukaday ayaan ku soo noqone waxaad yeelaysaa adu hayla hadlin hadaan xanaaqo isku ogaada kadib ninkaagu markuu xanaaqay ridda u sifir inanaada asagu jiraya adiga dhakhtar baad labada isqabta labadu waa dhakhaatiir asal laakiin hadba midka xanuunsada ayay jiradu haysaa ka kalena waa kii caafimaadka qabay haddayna labadooda marka aynan ahayn labo dhakhtar haddayna ahayn ma isdaaweyn karaan maya daawadii baad cudur ka dhigaysa reerkun halkaas ayuu ku dumaya waxaa jira idaaratu lkhilaaf ayib waan iskhilaafnaanay adiga ma naqaano seen u tacaamulnaa carruurtiina halkanay joogaan haye ma carruurta dhexdooda ku murannaa ma carruurta dhexdooda isku qaylinaa ma carruurta dhexdooda isku qabsanaa ma carruurta dhexdooda baan wax walba samaynaa iiga jawaaba waa xaqiiqataa la guryaheenne ha waa xaqiiqataa la guryaheenne waana waxa ugu badan oo dumiya saadaradeed culamaa'u tarbiya marka ay arrintan ka hadlayaan waxay dhahan abadan labada isqabta lama ogolo ee lamaanaha biwujuudi alawlaad carruurta oo joogta inay ka wada hadlaan wax u tusinaya carruurtu inay shar yihiin abadan qodobka aan maanta hoos inteenan ka xariiqno ma sha allah aan inta hoos ka xariiqno odaygaadu hadduu kugu xanaaqo maxaa samayn haye odaygaaga hadduu kugu xanaaqo carruurtoo joogto maxaa samayn gabadhee ka jawaabi karta aniga ficil baan rabaa ma hadda halkan la joogo wallahi khat may waxaa la doonayaa ficil baa la doonayaa haddii odaygaagu kugu qayliyo maxaa samayni waad aamusi soo ma ha waad aamusi waad fadhiisani waad soo weysaysani haddaad tukanayso 2 ragcadood baad tukani shaydaankaa la iska naaraa kadibna aye goorma ayaad adiga iyo ninkaaga wada hadlaysaan markay carruurtu seexdaan qaabkeed u wada hadlaysaan fadhiga meed ku wada hadlaysaan mise jiifka ma fadhiga lagu wada hadlaa mise jiifka shaqooyin kale loogu talagalay fadhiga lagu wada hadlayaa marka fadhiga lagu wada hadlayana dhagaysta gabdho waxa idin sheegayo aad u dhagaysa waxa idin sheegayo aad u tadbiiqiya u dhaqan geliya marka aad miiska soo fadhiisataan
miiska waxaa soo dhigtaa biyo cad iyo qudaar qurux badan soo dhig qudaar soo dhig miiska macmacaan soo dhig miiska buskud iyo kackac iyo muxuu ahaa xalwo iyo wax un mataqaanaa wax yar waxaasi waxay khafiifinaysaa iyo ubax iyo horta miiska inaad qurxisaa lagaa doonayaa yaa awoodi kara arrinta ariga gabadhee awoodi karta hadda in la sheega way iska fududahay laakiin waa kuma qofka siday tahay u tadbiiqin kara waxaad arki doontaan midho aad iyo aad u yaab badan oo cajaa'iba kadib markii la fadhiisto waxaa la doonayaa qaabka loo wada hadla in la yaqaano hadalka waa inaan la iska goynin waa inaan la isku qaylin laakiin laba suuraad siinaya khaladka hadda yaa lagu khaldamay ka waran ninkaa lagu khaldamay gabadhi baa maanta khalad kale laba siiqaan rabaa marka ninkaan rabaa inaan su-aasha weydiiyo laba siiqo kee fiican culimmada ragga mashaayikhda laba siiqo kee fiican laba qaab inaan dhaho gabadhay arrintan wax badanna waan kaaga digay waadna garan la'dahay meel xun baad ku socotaa arrintan maanta aad igu samaysay ma aha arrinaan u dulqaadan doono go'aan baana ka gaari doonaa waa wasiirkaaga arrimaha gudaha ma kula tahay inay natiijo iyo midho fiican ka dhalanayso okay taasi waa midda labaad haddaan dhaho xabiibtii magac fiican ugu yeedh ineenay magacan hadda innagu iskugu yeedhno wax badanna waan ku celinay xaaska aad qabta hooyadeed baa magaca u bixisa aabaheed soo ma adi gabadhan iyadoo 20 jir ay kuu timid soo ma 17 jir soo ma magac ma u baxsatid ninkan kuu yimid magac ma u baxsatid adigi iyo isaga isla taqaanaan bas magac markaad ninkaaga ugu yeedho qalbiga laga taabanayo magac markaad ninka oo gabadha uu ninka ugu yeedho qalbiga laga taabanayo ma wax reer galbeedkuna barayaanba ma wax reer galbeedkuna barayaan ma wax buugaagta reer galbeedka laga akhristo waxa idin sheegay oo dhan waa wax shareecadeena asalu ah waa wax shareecadeenu ay taasiilisay wey marka dad xabiibtii ma ogtahay horta waxa adduunka dumar jooga intaan saa u fiiriyay ina adiga la soo dhaxbaxay ya horta markaaba baraf baad dushka fuulay kow qodobka kaliya horta qodobka labaad hadalkii aad igu tiri haddaan anigu ahaan lahaa markaan fiiriyo meeshaad iga joogto qiimaha aad ii leedahay yani sharafta aad ii yeeshay oo aana soo koobi karin markaan eego hadalka aad ani igu tiri anu maba kuu quureenba afkaygana kama soo baxeen kelimadii hore iyo kelimada dambe ii miisaama qofku ma kelimadan dambe ayuu macnaheeda iyo macaankeeda dhadhaminaya mise kelimadii hore oo tahdiidka ahayd qaab baa loo wada hadlaa waa haddaad ani rajo iga leedahay wey haddaad dan iga leedahay wey haddaad ijeceshahay wey haddaan xaaskaagii ahay oon marwadaadii ahay oon carruur kuu dhalay oon dharka kuu dhaqo oon cunto ku siiyo oon jiko kuu galo xaquuq waaweyn khilaaf yaroona dhex maray miyay dhici karta in nolosheenna aan saa u baabi'ino ninkii gabadhnimada kaa soo saaray soo ninkii reerkiina meeqaad reerkiina la joogtay aabbahana la joogtay waxaa laga yaabaa gabdhaha qaarkood in 18 sano lagu soo guursaday 17 sano ninkeedana ay 40 sano isqabaan soo saas ma 40 sano nin aan la noolayd ma wax sahlan ba ina si suhulo sano kala aad dhahdoon waa nin Soomaaliyeed laad ku dhufo ma dhici kartaa waxaan doonayaa inaan dhaho qaabka noocaas markii caruurta ay u arkaan fiiriya hooyadan hadalka macaan iyo aabbahan hadalka macaan ee isu sabraya ee isu dulqaadanaya ee isu qoslaya ee isu quruxda badan markay caruurtu arkaan waxa dhacay ma taqaanaan raadka ay caruurtu ku reebayso ma taqaanaan waa meeshaan laha waa gunta gundhiga waa meesha ay ku leedahay tarbiyada ilmaha ma taqaanaan ilmahaasi waxa ay noqonayaan gabadh haday tahay waxa la yiri ihsaa'iyaadku waxay tilmaamayaan waa gabdhaha guurka u degdega gabdhaha guurka u degdega waa gabdhaha qoyska aan ka sheekaynayna gabadhu waxay leedahay talow anigu aabbahay oo kale ma heli karaa talow aabbahay oo kale ma heli karaa talow hooyaday oo kale ma heli karaa ma heli doonaa ayuu dhahayaa wiilku laakiin waxay suuraysataan الصراخ من قبل الوالدين هذين لبدي اسكو قيليان عروتي او جوجت عدم الاحترام والشتم هذين احترام لآن iyo cay iyo تبادل التهم iyo المقاطعة في الحديث iyo التهرب عن المسؤولية من المسؤولية iyo هذين waxa soo dhan ay dhacaan maxaa dhacaya ilmuhu waxay galayaan waxay culimadu yaqaaneen النفق المظلم
يعني نفق مجدي مدوب عروتو جليان مال أضق أو خطر أي جليان صدر هذا لمانها إن احترامان وإسقدريان وقضب الصلاة وآدي مهمة أوي وحدونا يا إن عنده قضب كله الصدق لمانها إسقبه رون مكوة الرغمان صدق مكوة الرغمان أي قضب عجائبة وهي صدق يرون مكوة الرغمان نك هذا رون مكوة الرغمتها أو ضاعد مكاتاي فعل كاسم يسرون مكاي يوم وشكتا قول كاغو رون ما يوم وشكتا نك حاسكي سرون يا ضاعد نمية صدق بكلها الله مسوي حاول نولش إنه وروريج يا إصدوا مرين إياه يا وإلا أجاده صدقي ومهم ولذلك مسألة الصدق هي ضاعد لماذا هل قصان ربعين كسر كوبا ويدار تاي لكن أيضا كوبا بإنسانية ما قشان قبل إلى أم سليم يا صدق هي ضاعد لماذا حكمة هي عقلك الذكاء والحكمة والحنكة أي قبل ولا هاي إياه ننكب قبل ناسي وحاق بي سحابي جليل أبو طلحة الذي رضي الله تعالى عنه وارضاه ويلير أي أول شيء أي حنو صدي أصغر مكان أيولد سفي على صعد قبله عقلي جينية مسكح جينية ودتشية رجعنا هو دقيستين وحن دمر كأي رجع كده حسام محاضرة وحي قراءة مقعد شيء قراءة كله كجران هو يا بقى ما يندهن والولا قبل ما ويل كيبا كيد على أول إنكار قبها بنان كشرا حبنا نجمع أوجو وحبنا ورنا نجمع هيو ما ويل كي انتي مال كدو دوبتي يا أيهورت تشكده قشي horta cunto waxay soo karisay yaa badan oo nin khiyaar loo kariyo maado wiilkaagu meedi habaad shika karin yaad cunto karinaysa haaway karisay ka warnaa idinku haaway karisay cuntadii markay karisay ayay haddana jirkeedii ka shaqaysay qurux gabadh caawa aroos hada طبعا بالطبع gurigana waa qurxisay markaas Abu Talha markuu yimid waxay ku soo dhaweysay qurux iyo قصل هي الصدق هي أمانة هي مسؤولية بكسر دويس إنما وإسك إلى لسي وحرجح سؤال شيء رئيسي ودي وحين قطي إيجا ورنويلك وحيكون تري هذا أبو الدجية ورملا فهم هذا أبو الدجية معناها ولا قبضه بيننا وإسك إلى لنا يساع وشهدنا إلى قادنا ويدون يساع وحي تري هذا أبو الدجية طلابه وجابي مرك حسن ويلك يركها توسنين الله أكبر عنتدي بكسر دويسي شرفتي بكسر دويسي قروح ذي بكسر دويسي عرفتي بكسر دويسي ولا عشية مركي العشية وقبل أراسه وحد أحمر حريرك الأحمر يشري لبا إسقاط تأسجعل ولبا هاي كورما ويلك أو ميدا إن الأراس نقط يا قبله وحن قبلها آدي ورقب أو لقد دقالنا مر والبابا وروح يراهن يرير كأكتسجا ماشى الله صعده إيه هدفك الله صعده إيه وتشدده وين وحاول ومال أنت إلهي والجنة نقول أبا المريض دون تبارك وتعالى إلهي الجنة نقول كل ميو سيدو هالك نقول كل ميو تبارك وتعالى وحصل وحكدر أن قبلني مر الله مركي حرير كي دعي أيت الأسود أبو طلحة غير دريس كنا فيري قبلي هو يكون مشغول يشرين غير دريس كنا هذي أمانة أن نكسر قاضنا أي نقص دونتان ما أدي لنا مسوانو علينا وأمانة كمبيوتر بالكسر قاضتي عقلا وشرعا ها وانو علينا هذا واحد تري دقيسة سيفعون دقيس ويل كيني أمان وأها إلهي حق سونا نوغي تبارك وتعالى إلهي بنوصه الدري نسيي حدنا إلهي قيل هذا دبء قاتيه ويل كهلور هذيو قبر يا حبال نبي قلت عليه الصلاة أبو طلحة ووشك قصة نبي توقس له وحيري بارك الله لكما في ليلتكما الله إذن بركة يا هبينكين حالها تابعين تقار كمية وحيدين وين إذا أم السليم هبينك أوربي قاضيه
uurkii wiil bay dhashay wiilkii waxaa la arkay 9 wiil oo uu dhalay oo quraa ah oo meel ku wada subcinaya Allahu akbar haddayna gabadha ahayn gabar muhiim oo sabar badan wiilkaas oo ma dhaafeen yaa gabdhaha aan doonayna inaan ku dayano oo wadadooda qaadno iyo ragga aan doonayna inaan ku dayano waa muhiim waan u jeedaa sheekha muqaddimka warqad buu isoo qoraya laakiin waxaan doonaynaa al-hub jacayl maxaa u taqaanaa horta aan isweydiina caawa aan sheekaysanne jacayl maxaa loo jacayl waan maqalay waa maxay jacayl horta aan wada hadal leh maxaa laga wadaa jacayl yaa qeexi kara jacayl maxaa laga wadaa jacayl shakhsiga aad jeclaanayso waxaad ku jeclaanaysaa waa maxay ma qurux baad ku jeclaan ma hadal macaan baad ku jeclaan maxaad ku jeclaanaysaa maxaa laga wadaa jacayl mafhuumul hubbi maxaa la yiraahdaa mafhuumul hubb waxa weeyaan shariicadeenu meel cajaa'ib bay leedahay meel macaan bay dhigtay maxaa la yiraahdaa mafhuumul hubb jacayl maxaa laga wadaa jacaylka runta ah ee dhabta ah ee xaqiiqada ah waa in rabbi la jeclaado jacaylka allah jacaylka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam jacaylka muuminiinta kadibna ciduu ilaahay kuugu daray nasiib inaad jeclaato jacaylkana waa maxay waa ixtiraamka iyo qadarinta iyo sharafta iyo sidqiga iyo weynaynta aad qofkan u haysa baa la yiraahdaa xub al-i'tiraaf bil khata su'aashaasi ma gabdhaha weydiiyaa mise ragga markaanu isku dhacno rag haddaan nahay dembiga ma qirana gabdha haddaan nahay dembiga ma qirana maalan aniga xaaskayga baa isku dhacnay markaan isku dhacno oo aanu wada hadalno khaladkii aniga aan yeeshay ma ictiraafaa gabadhu khaladka yeelatay ma ictiraaftaa ragga iyo dumarka koodee ayaa khata iyo khaladka qaata ma ragga u badan mise dumarka u badan axsant ma ragga u badan inay dembigooda qaataan mise dumarka u badan horta ragga balan siiyo olmaala haddaad xaaskaaga isku dhacdaan markaad wada hadashaan aad aragto inaad khaladka adu leedahay ma warwareegaysataa qiil miyaad raadisaa mise markaaba khaladka waad qaadataa rag way qaataan ya markas haweenka gardaran ayib aya gabdho hadduu ninkaa uu kaa gardaray aad ka gardarantahay dado ay gardaradu kugu caddaato gafka markaa ma qaadataan ayib waxaan weydiinaynaa sheekh cabdiraxmaan iyo sheekhayga sheekh Saciid masaladaas waa masalo ee u baahan baan u malaynayaa aqrin dheer iyo nafsiyaadka la aqriyo ma ragga u badan mise dumarka u badan ani intaan aqriyay raggu way qaataan khata'ooda dumarku durba ma qaataan haye waa lagu khilaafi karaa sheekh cabdiraxmaan baa inuu tarbaaxay ku dhufan doona ya saas maaha mise dumarka durba khaladkooda ma qaataan ragga durba khaladkooda qaata soo maaha dumarku ma qaataan khata markiiba taayib arinta waa daraaso la sameeyay dib baad ugu noqon doontaan khata markii la yiraahdo yaa markiiba qaadanaya ninka laga yaabo inuu dhaho aye waa sax raali noqo gabadha waxa laga yiraahdo way maxaad igu samaysay oo sidaan maxaad ii yeeshay oo maalinta hore waxbay go'anaysaa fara badan waxay dhahaan dhikrul jafa dhikru safa dhikrul jafa ba'da safa jafa dhikru safa ba'da safa jafa الاعتراف بالخطأ وقضب أسجنا مهم هذا صار أروريه إلى 5 دقائق هدي التسامح وقبول الاختلاف يعني لما قف إنا إسعافيان خلاف كنحن وضعنا مدول بمدك كلا إنه أقبله أو مدول بمدك لا وكيس قات وقضب أسجنا هذه مهمة التعاون والتشاور وحكمنا التعاون كإيه وذا تشجع التعاون وحوذا قبص شذا iyo wada tashaawuru iyo wada tashiga ninka iyo labada isqabta waa inay wada tashadaan waa inay ka tashaawuraan sida oo kalena waa inay iska tacaawunaan guriga waa inay ka tacaawunaan caruurta waa inay ka tacaawunaan kalimadii ugu dambeysay insha Allah reerka doonaya inay wanaagsanaadaan afar baa laga rabaa kow inay ka midaysan yihiin xagga cibaadada ma la soo darto inay ka midaysan yihiin xagga dhaqaalaha
xagga cibaadada xagga dhaqaalaha xagga tarbiyada iyo xagga mustaqbalka iyo meesha lagu dambayn doono afartaa reerka aan ka midaysnayn afar baa sugaysa yaa garanaya afarta sugaysa qof hadduu dhinto maxaa meeqa jeer ba allahu akbar dhahaa takbiir soo maha jinaaza sugaysa waa qofka reerka waa u dhammaanaysaa saa daraadeed ha la isilaaliyo lacag yar baa isku qabsan wax la yaabaan mataqaana reer dhan oo muslima oo isku qabsanaya wax yar oo sandareero ah wax yar oo maxaa la yidhahdaa adduunyo bedelka la rabay inay mid walba intay caruurta ay midig iyo bidix qabtaan inay dhahaan alxamdulilah inta yara ilaahayna siiyey naxmadullah tabaaraka watacaala haasasaas maaha ilahay waxaan ka baryay tabaaraka watacaala inuu qoysaskeena qoys wanaagsan ka dhigo ha laysu sabro ha laysu dulqaato ha lays jeclaado xubbi ha laysu muujiyo daacad ha laysu noqdo wabitaali waxaa weeyaan waxaa la gaari doonaa natiijada meesha ugu sarraysa malaa'igna ma nihin waa lays qabanayaa meesha ugu dambaysana qalbigiinna waxaan gelinaa iimaanka allah aakharo oon xusuusanno mar walbaba adduunyadan waxba ma aha meesha xaqiiqada waa aakharo halkaana aan ku dadaala insha allah hada wabillahi tawfiiq sali allahuma waslama wabaaraka على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته